waa maxay sababta jacaylkaagii hore kuula soo xidhiidho muxuu qofkii hore xiriirka idinka dhaxeeyay mar labaad kuula soo xidhiidhaa waxay dadka hore u wada socon jiray oo isjeclaa marar badan iskugu soo noqnoqdaan kadib markuu xiriir u dhammaado maxaase sababa in dadka qaar dib mararka kale ula soo xidhiidhaan jacaylkoodii hore kadib markay xiriir kale yeesheen maqaalkan maanta waxaan kaga jawaabi doonaa su'aalahan aan kor ku soo xusnay fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe oo gambaleelkana taabo si uu kugu soo dhaco warbixin kasta oo anaga aan soo gudbino insha Allah haddii qofkii hore xiriirka lahaydeen aanu si buuxda uga bogsan xiriirkiinii burburay waxaa laga yaabaa inuu dib kula soo xidhiidho si uu u eego inay jiri karto rajo uu xiriirkiina dib ugu soo aasmi karo aargudasho mid ka mid ah xaaladaha ugu qofka u maro marka uu ka bogsanayo xiriir burburay waa xaalad aro ah inay ugu wacan tahay aradaasi waxaa laga yaabaa in qofka xiriirka aad lahaydeen inuu doonayo inuu ka aarguto waxaa laga yaabaa in dib uu kula soo xiriiro isagoo ujeeda gaar ah wato qofka oo awoodiisa tijaabinaya qofka aad xiriirka lahaydeen waxaa laga yaabaa inuu dib kuu soo noqdo si uu u tijaabiyo inuu mar kale ku xanan karo jacaylkaagii hore waxaa laga yaabaa inuu kula soo xiriiro mar kale si uu u tijaabiyo inuu ku soo jiidan karo iyo in kale qodobka kale waxaa tula muuqataa qof soo jiidasho leh aragtiyada kala duwan ee dadku inaga haystaan iyo sida ay noo arkaan marba marka ka dambaysa way isbedeshaa haddii aad samayso waxyaabo soo jiidasho kordhinaya sida inaad caano noqoto inaad guul badan gaadho ama inaad muuqaal ahaan noqoto qof soo jiidasho leh waxay sababi kartaa qofkii hore xiriirka aad la lahaydeen inuu kula dareemo kadibna uu dib kula soo noqdo qodobka kale isbarbardhigga uu qofkaasi sameeyay ayaa u soo baxday natiijada ah inaad adigu tahay qof fiican qoomamadu waa dareen aad u xoog badan oo qofkii aad xiriirka lahaydeen dib kugu soo celin karaa haddii uu jacaylkaagii hore dareemo inuu waayay qof qiimo leh waxaa laga yaabaa inuu mar kale isku dayo inuu dib ku helo ama uu ku hanto sideed uga falcelin kartaa xaaladahan oo kale haddii qofkii hore aad xiriirka lahaydeen guursado ama ay guursato ama xiriir kale leeyahay ama ay leedahay xiriir kale isku daya inaad u fiicnaato isla markaana aad ka fogaato ilaa qofka aad hore xiriirka ula lahayd ay kala tagayaan qofka hadda xiriirka la leeyahay fikrad fiican ma ahan inaad la sheekaysiga sii wado haddii jacaylkaagii hore weli madax bannaan yahay waa inaad naftaada weydiisaa inaad dhab ahaan u rabto inaad xiriirka ku noqoto ama inaad markaagii hore go'aan fiican qaadatay haddii aad rumaysan tahay inaad markaagii hore go'aan fiican qaadatay waa inaad dareensiisaa qofka hore xiriirka kula lahaa si aad qofka uga caawiso inuu si buuxda uga bogsado kaana rajo dhigo haddii qofka aad hore isu jeclaydeen aad u sheegtay inaanay jirin isku soo noqosho dambe waxaa dhab ahaan kaa caawinaya inuu si dhaqso ah ugu bogsado jacaylka kuu qabay ama ay kuu qabtay